kulliyadda shareecada jaamacadda Burco ayaa soo gabagabaysay dowro lagu baranayay cilmiga shareecada islaamka oo soconayay 10 maalmood taas oo ay ka faa'iideysanayeen ardayda macaayida kala duwan ee magaalada Burco. Hormuudka kulliyadda shareecada jaamacadda Burco Suldaan Sakariya Salebaan Jaamaca Wale iyo ku-xigeenkiisa Sheekh Maxamuud Axmed ayaa ka warbixiyay ujeedada iyo xidhitaanka xafladan. waxaynu fadhinaa masaajid barakaysan inaynu soo xidhno khitaabkii dowladii ka soo socotay masaajidkan barakaysan muddo 7 cisho dowladani waxa weeyaan waa dowladii saddexaad ee ay soo hordaariso kulliyadda shareecada iyo qaanuunka ee jaamacadda Burco. الحمد لله إلهي سبحانه وتعالى هذا الصناعي وعلم الدولي صديحات الصوت والرئيسي كلية الشريعة القانون كجامعة برعو دولة المحكمة هاي نشاطك وحقبتك أي ديانسو كلية الشريعة جامعة برعو وأيضا جامعة برعو وجامعة دولية وحكومية horumarkeeda iyo kobcinta intaba inay qayb weyn ka qaadato waxay ka mid tahay tiirarka ugu waaweyn ay ku taagan tahay. sidaa daraaddeed kulliyadda shareecada iyo qaanuunka jaamacadda Burco waxay qabataa nashaadooyin iyo tacab iyo dadaal fara badan oo ay ka qabato meelo kala duwan. waxaa ka mid ah nashaadaad fara badan oo waxbihiisii ugu horeyso inay ka qabato saaxada iyo goobta ay ku taalo oo ay wax u dhigto ardayda barata shareecada. waayo kulliyadda shareecada iyo qaanuunka jaamacadda Burco waxaa la aasaasay 2005 maantana waa 2021 16 sano ayay shaqaynaysay oo cilmiga shareecada islaamka iyo qawaaniinta dadka lagu dhigayay oo ay soo saaraysay dafcado fara badan oo kala duwan ee barta shareecada ee dhigata macaahidda iyo iskuullada iyo hadday noqoto imaamiyada masaajidada magaalada dhexdeeda gacanta ku haya iyo hadday noqoto mu'adiniinta masaajidada iyaguna gacanta ku haya iyo hadday noqoto dhammaan barayaasha gobolka hadday rag noqoto iyo hadday dumar noqoto intaba xilliga fasaxa waxaanu siinaa dowrooyin iyo siminaaro iyo tababaro wax badan ka anfaca dadaalkooga iyo halgankooga ay bulshada ugu jiraan. qaar ka mid ah culimada gobolka Togdheer iyo macallimiinta magaalada Burco ayaa u mahad celiyay hoggaanka kulliyadda shareecada jaamacadda Burco oo wax weyn ku soo kordhiyay kor u qaadida barashada shareecada islaamka. ka mushaarik cid kasta oo inagala soo qayb gashay waxa maanta inoo farxad ah juhdigii aynu muddada dheer soo wadnay ee dadaalka badani ku jiray ee subax walba u soo kala hayseen 8 intaynu soo gallo aynu 12 oo wax yar dhiman aynu ka baxaynay dadaalkii aynu intaas soo gallay oo maanta aynu natiijadiisii iyo farxadiisii iyo hambaliyadiisii aynu maanta dhammaanteen fadhino. runtii ardaydu dadaal fara badan ayay muujiyeen subax kasta halkaasay ku soo kala hayeen. maamulka hormuudka jaamacadda kulliyadda shareecada iyo macallimiinteeda ardayda ka faa'iideystay dowladan hablo iyo wiilalba dhammaan xuduurka mashaayikhda ka soo qayb galay khitaamka ilaahay subxaanahu wa ta'aala mahad iska leh fursadan iyo jaaniskan oo ay yar tahay in la isla helo in sulansiiyay ilaahay baynu ugu mahad celinaynaa mahad dhammaanteed ilaahay u sugnaatay. laptopka iyo mobilka iyo kutubta heli doontaa idinkoo dhammaan wada dadaalay oo idin wada halbanaynayo waa nasiib intani xagga aqoonta waad ka simantihiin. waxa laga yaabaa ardayga ugu hooseeyay imtixaanku inuu ka faham bato ardayga laptopka qaadanaya laakiin jaayisad ila bixinaya waa nasiib ما شاء الله وحوي جامعة برعو يهرمود كده شخص كريه
buuxaa ee la'aantii aanu wax qabteen haddaan iyagu ku dhiirigelinayn hawlweynaynta mashaayikhda ee la hawlgala aanay yihiin waana ducaynaynaa ilaahay ka abaalmariyo dadaalkay da'yarta ugu jiraan say ugu dhiirigelin lahaayeen shareecada say u baran lahaayeen iyagoo waxa weeye khaas iyo caamba u yeelay waa markii saddexaad ee kuliyadda shareecada ee jaamacadda Burco soo qaban qaabiso dowro caynkan oo kala waxaana ugu dambeyntii abaalmarin la guddoonsiiyay dadkii ka faa'iideystay Cabsa Farax Cabdilaahi